Asalaamu calaykum. Waxaynu ka hadlaynaa qiimaha ay hooyadu ku leedahay agteena. Waxaan hubaa inuusan mowduucayni soo koobi karin qiimaha iyo qaayaha ay hooyadu ku leedahay nolosha aadanaha iyo adduunka oo dhan. Miyan gama hawaysta habeenkii la'aanta aan horay u seexda haddii aanad ila hadal hooya aanad igu odhan hurdo miyay qabataa soo naftaadu huradkiyo aanida ka siisay abti kuma tabayso aragaagu hooyo ani ima haraatiro. Haddaba waxaa laga maarmaana inaynu is-xasuusino qiimaha ay hooyadu ku leedahay agteena. Qiimaha iyo qaayaha iyo qadarinta iyo xushmadda intaba waxay naga mudan hooyadeen. Hooyadu waa laf-dhabarta wax kasta oo nool ah, gaar ahaan bini'aadamka. Waxaa hubaal ah inay laf-dhabartu tahay waxa kaliya ee la'aanteed la noolaan karayn. Waxaa muhiim ah inaynu dareenno inay hooyadu tahay qofka kaliya ee adduunka ugu sabirka badan, ugu dulqaadka badan, ugu xushmadda badan marka loo eego ilmaheeda, wiil iyo gabar kuu doona ha ahaadee. Hooyadu waa tan kaliya meel iska dhigta raaxada iyo nolosha macaan, ugana guurtay kana door biday xanuunka, silaca, rafaadka iyo balanbalka iyo wax kasta oo nolosha aadanaha aan raaxo u samaynayn, isla markaana u hibaysa nolosheeda, raaxadeeda inuu ku noolaado ilmaheedu. Hooyadu waa tan kaliya ee u galan gashay inay ilmaheeda u marto dhib iyo xanuun kiisa ugu kulul uguna rafaadka badan. Waxaynu ogsoonahay qiimaha iyo qaayaha ay hooyadu leedahay in Ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa noogu sheegay, sidoo kalena nabigeenu suubanaa naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee inuu noogu iftiimiyey axaadiis fara badan. Waxaan jeclaystay inaan ku dareensiiyo haddii aad haysato hooyo inaad haysato jannadii ifka oo dhan. Fadlan ilaali, xaq dhowr, xanaanee hooyada, waayo iyada ayaa mudan wax waliba. Ilaahay ha dhowro hooyooyinkeen. Haddii aad tahay qof garanaya ama dareensan qiimaha ay hooyadu leedahay, si ay u gartaan una dareemaan dad badan, walaalkayow gaarsii walaalaha, siina sheer garee muuqaalkan, sidoo kalena nagu soo biir channelkana subscribe taabo.